kusoo jirnay asaasiyaadka luqadda Sawaaxiliga maanta waxaanu baranaynaa erayada laga isticmaalo isbitaalka. Erayga koowaad aynu ka bilaawno hospitali ayaa hospitalka. Hospitali hospitalka ama isbitaalka. Anaenda hospitali isbitaalku u socda. Ama waxaad leedahay hospitali iko karibu. Hospitalku waa u dhow yahay. Ama isbitaalku waa u dhow yahay. Hospitali iko karibu. Erayga labaad waa daktari. Daktari waa dhakhtar. Daktari. Yes, daktari. Dhakhtar. For example, waxaan leeyahay daktari anafanya kazi nyingi. Dhakhtarku wuxuu qabanayaa shaqo fara badan. Ama daktari anasaidia wagonjwa. Daktari, dhakhtarka, anasaidia wuxuu caawinayaa wagonjwa, bukaanka, wagonjwa. So, maadaama aynu bukaan sheegnay, bukaan waxaa la yidhahdaa mgonjwa. Mgonjwa. Yes. Mgonjwa waa bukaan. Yes, hal qof, yani one patient, hal bukaan. Markay badan yihiin waxaan leenahay wagonjwa. Wagonjwa. Okay? Mgonjwa waa keli, bukaan. Bukaano waa wagonjwa. Yes. Somaana dhihin daktari anasaidia wagonjwa. Dhakhtarku wuxuu caawinayaa bukaanada. Yes. Erayga afraad oo in halkan ku baranayno waa afya. Afya. Afya waa caafimaadka. Afya ni muhimu. Yes, caafimaadku waa muhiim. Erayga ugu dambeeyaynu baranayno dawa. Dawa waa daawo. Dawa. Waxaan ku leeyahay for example, dawa iko mezani. Daawadu waxay saaran tahay miiska.